maxkamadda gobolka Togdheer ee magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer ayaa maanta burburisay khamri tiradiisu dhintay 941 dhalo iyo 10 kiilo xashiishada oo lagu gubay halkaasi iyadoo lagu hayo 6 sano oo lagu kala xukumay 5 sano ilaa 6 sano inta u dhaxaysa waxa geesta kalena lagu soo qabtay khamrigan oo lagu soo gelinayay magaalada 5 gaari oo kamid ah gaadiidka dadweynaha ay isticmaalaan Land Cruiser, Seraf, Fitis iyo Noho iyo gaadiidka loo yaqaan Tigta mid kamid ah oo lagu xukumay qiimahoodii 20% xeraliyaha guud ee maxkamadda gobolka Togdheer iyo qaar kamid ah garsoorayaasha maxkamadda gobolka Togdheer iyo arrimahaasi ka hadlayeen waxa hadalladoodii kamid ah sida tan burburinaya oo maxkamadda ku burburinaya booliiska iyo xafiiska xeeraalintu khamri dhan 941 dhalo iyo 10 kiilo xashiishada khamriga iyo xashada waxa lagu qabtay dad kala gedisan kiiska u horeeya waxa lagu qabtay Maxamed Xirsi Maxamed iyo Maxamed Maxamuud Cali midkiiba waxa lagu qabtay 299 dhalo midkiiba wuxuu ku xukumay 6 sano xariga aadan Maxamed Cali 5 sano xariga ku xukumay waxa lagu qabtay 255 dhalo oo khamriga Abdalle Ibrahim Cilmi waa maqane Maxamed Xasan Maxamed waa maqane Abdisamad Xirsi Maxamed waa maqane laba wax ka baxsteen maxkamadda horteeda ka baxsaday midna hore maqnaa waxa lagu xukumay midkiiba 6 sano xariga iyo 6 bilood labada hal ka baxsaday waxa lagu qabtay 44 dhalo oo khamriga iyo gaarigii siday Saciid Faarax Ducaale waxa lagu qabtay 65 dhalo 6 sano ku xukumay Cabdiraxmaan Qaasim Jaamac waxa lagu qabtay 10 kiilo oo xashada waa 10 waxa lagu xukumay 5 sanadood oo xariga dhammaan gaadiidkii siday midkiiba wax la ganaaxay 20% dhammaan gaadiidkii siday midkiiba wax la ganaaxay 20% booliisku aad bay u mahadsan yihiin howlahaasan bay qabteen maxkamadda iyo garsoorkuna waajibkooda bay ka qabsadeen waad arkaysaan maandooriyahaas iskugu jira 941 quraaradood iyo 10 kiilo ee xashiishada ah waxaanu annaguna u adeegsanay xeerka mukhaadaraadka qodobkiisa afraad faqradda koowaad xeer lambar 22 saas awgeed dhammaan maxkamaddu waxay amraysaa in la burburiyo 941 dhalo la gubo 10 kiilo ee xashiishada ah diiwaan aafo ummadda haysata falilahi alxamdu ciidamada bilayska iyo dadweynaha oo iskaashanaya ayaa ka taliyaha ciidamada booliska gobolka Togdheer gaashaale sare Maxamed Faarax Nuur ayaa digniin culus u diray cid kasta oo ka ganacsata maandooriyaha khamriga isagoo shacabka qayb si kala duwan ka codsaday inay la shaqeeyaan ciidamada booliska qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Togdheer isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladiisii kamid ah sida tan daadinayna mukhadaraad ay soo qabteen ciidankan gobolka Togdheer gaar ahaan saldhigga dhexe iyo Faarax Omar iyo Duruqsi saldhigga dhexe waxa uu dheer muxuu ahaa xashiishad waa 941 weey iyo 10 kiilo xashiishada intaas oo burcay soo galeen burco intayna ana ku milmi baanu ka qabanay dadweynaha nala shaqeeya aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa imikana waxaan ka codsanayaa inay nala sii shaqeeyaan waa Saciid Cali Cusmaan Xalis telefishinka caalamiga gobonimo magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer